iskuulku aad wadamadaas carabta ka dhacday subaxii marka fasalka ciyaalkii baa adigu qaar edeb darro sameeyeen isagoo edeb darro ma sameyn macallinkii wuxuu yidhi yaa sameeyey arrintan way sheegi waayeen wuxuu yidhi kulli waa idin dilayaa mid walbaba waa inaan 5 ulood ku dhuftaa gacmaha taaga kan ka soo bilaab yarkii markuu soo gaaray yarkii wuxuu yidhi macallin aniga ma idili kartid maxaa dhacay maxaa ku dili waay wuxuu yidhi aniga gurigayga saaka markaan ka soo baxay waxaan idhi bismi illaah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah waxaana la ii yidhi malag baa ii dhawaaqay sida nebigu noo sheegay wuxuu yidhi wuqiita wa kufiita wa hudiit wuqiita waa lagu ilaaliyey wax ma kugu dhacayo wa hudiita waa lagu hanuuniyey ma garatay marka maadaama ilaahay uu saas ii ballan qaaday ducadaasna aan ducaystay ima dili kartid ilaahay baa iga kaa celinaya macallinkii dab waa macallin muslim uu yaabay arrintii arrin yablay ku noqotay wuxuu yidhi war bal hadalkaa ku celi wuxuu yidhi yaa macallim aniga awalan idab darro ma samayn ثانيا aniga ima dili kartid leannu saaka waxaan ku soo ducaystay ducadaas ilaahay baa iga kaa celinaya macallinku wuu cabsaday wuxuu yidhi wallahi inaana ku dilay laakiin ana keen wuxuu u geeyey mudiirkii dhannaha ee madrasada u geeyey wuxuu yidhi ninkii manager maxaa la yidhaha meesha maamulaha iskuulka rectorkii buu u geeyey wuxuu yidhi dhagayso yarkaan saasuu yidhi ninkii mudiirka ahaana madrasadii oo dhan buu soo ururiyey arrintii arrin weynay noqotay bal ilmaha yaqiintiisa fiiriy yaqiin dhab ah maadaama uu xadiidkaas maqlay waxaa lagu yidhi ilaahay baa ku ilaali wuxuu yidhi ima taaban kartid macallinow maxaa yeelay maanta ilaahay baa iga kaa ilaalinaya ducadaas ma soo iloobin adiga waxaa tiri waa soo iloobaa soo maaha haddaadan iloobin macallin kuma dilaayo bise meesha lama bedila ciyaalka allahu latiifun bicibaadi allah yarzuqnaa wa iyaakum yaqiinta allah na siiyo haddaan yaqiin la nimaa